dowladda hoose ee degmada Baydhabo ayaa ka guuleysatay intii galantaha ka dhigta daawooyin cabitaano iyo raashindi waana la ka dhaxgaday gudo suuqa magaalada Baydhabo ahaana soo sabab kora dhibaato caafimaad iyadoo taas lagu duulaw yamayba geeka lagu gubay daawooyin cabitaano iyo raashindi ahaana soo la ka qobadi ahaana ku mid ah dukaanada iyo biibatooyinka ka yaala gudaha Baydhabo shirjirayd oo si wada jaray qowdan maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Baay yamayba si kulul iyo ku dooweena arintaas iyo na dignin andari ganacsatada magaalada Baydhabo حسن معلن أحمد بيكولي قدوميها دقمدا بيدوا وان ادوقا مقالدا مايبا وستل مامي انتي لن دولقا ضدونا ان قداها بيدوا لك دقادا واليابا وقت شول هادي وسونا شاقي انتي اللعبا شرعي لكو قادا دونا عدي لكو قوضا ايوكو قناع صدايان واليابا وقت شول مادي وحقوصة في شركة جرائد دولد هوسي بيدوا ايا محلل كونترول بدن وحيكو سميسي dukaamada iyo biibatooyinka iyo meelaha lagu gado daawooyinka farmashiyalka waxay soo heleen daawo badan oo dhacday sharaab badan oo dhacay raashin badan oo dhacay dhibaatooyin dadweynaha ganacsatada ay ku sameynayaan nasiib wanaag dowladda shaqay qabatay iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda hoose iskaashanayaan waxay keeneen alaab tiro badan oo dhacday oo dadweynaha laga iibinayo arintaas dad muwaadin ah waxa laga rabay inay dadkooda u turaan waxaas oo dhacay oo dhibaatada keenaya ama jirida keenaya xanuunka keenaya inay dadkooda ka ilaaliyaan baa laga rabay laakiin way daneysteen dhaqaalahooda iyo shilinka ay ku fikireen taas waxay muwaadinimo ah dal jecel ma dad jecelna ma waxyaalo badan oo Soomaalida kale ku xorowday ku jiraan gobolada dalka Soomaaliya waxa soo dhaw ay ku xoroway ka gaareen dad hadaarad leh ilmaha way laakiin anaga wali waxaan haysta inaan wax Allah ruuxi xumaana samaana isku dhaxdarna xumaantii samaanta waa la kala saaraa marka waxaan ku baraarujinayna shacabka reer Baydhabo inay iska hilmaamaan raashinka dhacay iyo sharaabka dhacay daawada dhacday dadkooda ay ku helaagin ay ka joojiyaan digniin way qabaan mar dambe ninkii lagu helan go'aanka dowladda waxa weeye in dukaankiisa la xaraasho dukaanka laga xiro way maxaa yeelay 1 milyan iyo wax la jiro bini aadan ku nool degmada Baydhabo ayay helaag way dhibaatadaas waxay saameynaysaa shacabka waxay saameynaysaa dowladda waxay saameynaysaa sharciga nidaam lagu ay weeqayaan ummaddu la qaadan karna arrimaha noocaas ah waxaan doonaynaa inay ku waantowaan ganacsatada magaalada ku nool waxyaalaha qaldan ay gadayaan oo shacabka ay ka gadayaan ama ha noqoto daawo ha noqoto raashin ha noqoto sharaab hatta waxaa dhacay buskudkii waxaa dhacay naanaca waxaasoo dhan insha Allah control adag baan saarayna hadii Ilaahay yiraahdo tilaabo ka qaadayna nin walbana digni waa qaba hadii lagu helo dukaamada waa la xaraasha kuwa buskudka iyo naanac iyo sharaabkana ayagana ganaax culus baa ku dhici doona laakiin kuwa badcada gaday oo raashinka gaday ku talagal bay u sameynayaan haddaan ku helna bakhaarkooda waa la xiraa maxkamad baan u diyaarinaynaa waa abaalkooda sharciga la marinay arrimahaas waxa way arrimo aad u qaldan way arrintaas anagu maanta shirkayga hadda waxaan gubnay alaabtii oo dhan oo dhacday oo sharaab ku jiro wax walba ku jiro raashin ku jiro wax walba ku jiro baa degmada dhexdeeda aan ka gubnay dab baa lagu xoriyay waa la gubay madaxda dhomeesha joogta way arkayaan gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo yamayba uu sidhiisha sheegay intii si wada doonaan howlo la kabaara walyaabo si bulshada la badbaadiya gudoomiyaha mid xogaa dawladda oo dhamaan intay qoyti shir jaraa'id uu geeyay gobolka xafiiska degmada maayarka Baydhabo soo maayarka waran sheegay mayba geey fadhiyana anta walbadan oo dhii oo ay toy raashinka daawada in inta ku gubaysin baragdan waa waxyaalaha dadka
caafimaad iyo nololyo dhib injiisay marka wal walaay oo expire dalkun la arag in ya warshayni hatana wal abuliye lankii wal gabow expire dembil ka gobol alaabtay meegu waada usul wadiire marka xisaabto in la darafeyle ya dasaas ogaado tan kale may booha oo dukaanka loo yiri tan kale oo on hadal muhiim ah in on dareer may booha jiditeedi may la rafaadiyo hay biyo oo dadka oo degan ka shawaayan sida maqaaydeeda بيبتدي ينقطع تكسكله هان جاك كذا ولا وين جيت كاب يلو أيوة جيت كاب يتبقى صوب سيد لا ميل كلاها ميسي مشين شغالة وانا سيك تجانه سأظن لو قبلا ولا الله لك كرتيس كويان لك هو بيزنس بيزنس كل هيري وان وقناه هو إذا أتوال قناه هو نندري هو بيك شيء وقناه لا الله لك لا من بيك شيء وانه يتبقى بابليك يجي تزيد يسوي بي وصل بيك شيء بما هو كهسابته ما يكتب إنه اللي يسوونه اللي حسابته مدور ورك كان سيء ورك فضل دانك غار جيب شيء لما دونا ما تجيب شيء لما يبغى هذا الآن مركا يعني سين ديجو هاي ودقنيتي إنك دمبويتي جيك لك بالله وصعدون هتروح لا الله لانك ورتيس قويان كأرنا ما يوها جناح أي حدا عن اسكندران وجانتي لها مشيك شيء هو هاي وردول دي دور رسمي أو لانكستو أرجونا أبغى بيقولي جناح ونشيلها لانكستو أرجو والقلب ده مليار أرجو مسؤول بيه ما يبغون لينو نسوه هشيغن هجود بين ما يبغى جناح هذا على الاسكندران لا ميال كل صوبي يعني بصوبي دون جدتي نم ولا بابي أو جدتي فعل هذا ما يبغى بيولك شيء وانا بيولك فوق تبي على جدك لك ولا فرضي ورثة بالبلاد اللي جدك الورا بيوها ميل جيك وكوين أطلب بابك ترى الجيش يبغى مركب بابين تدلكوا إيراني هذا بيويس إنك شوية تميل مسؤولي دي إيش كذا سا ولا إيش كذي إيش مسؤول كوي أو هذا دونتان هو إلى هاي ربنا قال هذا قصدي قبل دون من مركب ديارنا مركب دارتي تاسو بي أي لك أرد ما جدتي إسين دقنتين إذا هو ينهستين هذا اللي فلاسا إسين حسنا ده في أصلا وساق إنك جدك في أصلا تاسي مسين قويلا ولا نركز هذا أركز الدوم نمبر مشكلة روغان بعيد أوساسي إذا ما سنتين gubowka raashinkum cabitaanadu iyo daawooyinku yaa kiyade xilli uu sii dhamaadahay sanadka 2020 isla markaasayna waqtisho dhamaadahay aanu kumid raashinka cabitaanada iyo daawooyinka ay walyaabo lamide Faysal Cadow raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo.